الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كورونا أحسن صاحبيال كسر وهذا برامجك توشكا تيك توكا waxaan ka codsanayaa inaad markaasi page-ka aflow noo dhahdaan muuqaalkan aad noo share gareysaan. waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka tooshka TikTok-ga waxyaabo markaas asbuucan ay ugu hadalhayn inta badan ama bulshada ay wadwadeen. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xabsa ayaa markaasi khudbad u jeedinayay waxa uu yiri hadaladiisa la soo jirtay waxa kamid ah hadalkan balan isla aragna marka hore hadal isku la nimaano sida ay dadku uga falceliyeen. waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeenu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u nool yahay. hadalkaas ayuu jeediyay waxaa la soo gaaray buu yiri xilligii dadkeena u noolaan lahaayeen sida inay bani aadam yihiin. bal waxaa la geeyay halkan oo ah barta TikTok-ga oo markaasi challenge-yada lagu sameeyo fiidiyoga markaas wuxuu waxa markaasi dhalinyarada ay ku challenge gareeyaan ay iska soo duudubeen ana bilaab insha Allah. waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeenu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u nool yahay. waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeenu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u nool yahay. waayahay ra'iisul wasaaraha dabcan challenge badan ayaa lagu sameeyay markaasi dadka ay ku qaateen filter daayir wajigiisa oo dadka u ekeysiinayo ay leeyihiin haddana ogaanayna xayawaan miya ah. dadka qaar waxay leeyihiin ra'iisul wasaaraha hadalkiisa uu saxayahay maxaa yeelay sida dadku isku gumaadayaan ama Soomaalida dhibka ka dhex jiro kaleeto waa hadal macquul balse ma ogi. dhinaca kaleeto barnaamijkan labaad ee markaas ku soo qaadan doona TikTok waa maamadan asla daawan marwada waxa laga rabaa markuu ninku guriga soo galayo inay halkaa kaga hortagtay ridka ay soo galbiso markay soo galbinaysa sida ay waqtaa ma ayna dirin shidka xiranta hooya ka hadlusa waxa ka hadle wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed maanta oo dhan uu shaqeynaa maqaayad ka shaqeynaa asaga dhama qurul xitaa maartay geed inuu ku dhigo ogolaanay saagu hortagay awaay iyadoo ma sha Allah maalintii la aroosay la boqoray way ayay ninka waxay kaga hortagaysaa banaanka markasta uu soo galay halkaan uu guriga soo galay guriga dadka kaga maqay halkaas ka soo galbinaysaa way halkaan markay ugu tagto gurigeeda markay soo gashay intay ka caruuray ka joogaan laga yaaba waxa uu taruuxda baa looga duwayay daa ninkeeda xabay siinaysaa waa dhufanaysaa waa maqlaysaan cajilka si fiican u qaata hooyadan hadalkeeda si fiican u qaata iridka suuxi markuu ka tago soo shaqeeyo soo yaadee awraga hortaga macnaha waa qayb kamid ah romantic intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka tooshka TikTok-ga saaxiibayaal aan kusoo qaadanaynay laba barnaamij markaasi maamadan iyo sidoo kaleeto intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka tooshka TikTok-ga waxaan jeclahay markaasi page-ka flow noo dhahdeen muuqaalkan aad noo saarteen insha Allah. Thank you.